بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed magaceygana waxa la yiraahdaa Isaaq Abdullaahi Gonjobo kuna dhashay dheertu Saalole waxaan halkan ka jeedinaynaa dagaal baa mooyaal ka socda dagaalka mooyaal ka socda maxaa soo dedejiyay Soomaalida in hadda la hasuuqayo la keenay in Soomaali la hasuuqo sidii hadda ra'iisul wasaarihii u qabsaday dhulka nabad buu ahaa ra'iisul wasaare ka hor dhulka nabad buu ahaa maadaama oromadu ay maaragtay ay mucaarad yihiin oo duurka ku maqan yihiin oo ciidamadooda ay badi ay duurka ku maqan yihiin hadda ra'iisul wasaarahan dambe markuu qabsaday maxaa dagaalka soo dedejiyay waay in dhul bilaarsi la galo in siyaasad la galo dalkiyo nabada in hadda qalqal la geliyo ummadiyo intaasoo sano wada degan waxa hadda galay maxay tahay waa dhul bilaarsi waxaan ilaahay magaciisa aan ku dhaaranayaa oo aan ummadda Soomaaliyeed horteedana ugu dhaaranayaa oo aan dadweyne hortiisana aan ugu dhaaranayaa oo aniga aan magac ilaahay aan ku dhaaranayaa inaysan dhul Soomaaliya kililka shanaad meel kililka shanaad waliba meel badan aan u dhaafaa jira waxaan diidayaa in qulqulata ay ka imaado aga iskaba dhaafe hadday oromadu iskaba dhaafe macal oromo iskaba dhaafe dad kale hata ay soo kaashadaan xaaran bay ka tahay haddii dawladda Itoobiya ay fiirsanaysa ummadda Soomaaliyeed oo la laaynaya ummadda Soomaaliyeed oo oromada gumaadaysa ay fiirsanaysa maxaa soo dedeji dagaalka maanta mooyaale maxaa soo dedeji Soomaali maanta maxaa dagaalka ku soo dedeji kililka shanaad in weer intii hore oo abiye hebel abiye ma la dhaha magaciisa horta ninka magaciisa ma ka saaye hebel abiye ma la dhaha maxaa soo dedeji hebel abiye intuu qabsaday maxaa soo dedeji intii hore oo dhan dagaal ma jiri jirin ma in abiye wuxuu hadda Soomaali inuu marka dalka ka qabsado ma loo doortay mise waxa loo doortay waa madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha Itoobiya ma loo doortay mise baabi'inta shacabka Soomaalida ee kililka shanaad baa loo doortay taasna waxay la jirtaa maamulka hadda talada hayay la jirtaa had iyo macal isagaba mid kale ma idin la tahay hadda dhulka Soomaalida kililka shanaad mooyaal intii la qabsado looga qax oromo ayaduna degto calan ka taagta habarteeda ay ka tahay waxa siyasan ku riyoonin dadkan iyaysan ka dhamaanin ummadda dhamaanaysa waa ummad la qaldo waay oo madaxooda la qaldo waay oo waxba aan fahansaneen geed salweyn haddaad sakiin aad ku daydo sakiin geed salweyn maba goysaba xaaraan ibaqti ay ka tahay geed weyn intaad qaadi sakiin maanta dhan ku rug xaaraan ibaqti ay ka tahay muku duuni saagan geetu hagati makiinaanatin imuraatetu si xaaraan baqti oromoy waa iga dardaaran dhibaatana inta isku keentaan dawladda Itoobiya dhibaato u keenana midna waxaan leeyahay dawladda Itoobiya dad waaweyn baa tihiin oo ummad intaasoo sano oo Itoobiya waa dad qadiima waay madad maanta laba shacab baa isdagaalaya labada shacab ninka gardar waa la arkaa oo mucaarad dabada ku wata waa la arkaya oo enag baa niman dabada ku wataan oo lagu dhameynaya ummadda Soomaaliyeed ee maaragtay kililka shanaad way ku fiirsanayaan dadkii baraka lagu sameeyna waa lagu fiirsanayaa dal ballaarsiya la wada waa lagu fiirsanayaa waliba federaalku wuxuu ka imaanayaa dhinac oromada oo dhinaceena federaal maba jirin waxa jira waa ummadda ee Soomaaliyeed oo maaragtay ciidan hadii yahayn shacab hadii yahayn dhibaato ma ka socdo dhinaca federaalka ka imaana maxaa dhibaato ka keena waa yaabna inuu dhibaatada ka joogsataan rabay dhinaca federaalka ka imaanay federaalku ma mid oo ummadda u dhaxeeya bis mid qabiil u dhaxeeyo way waan la yaabna annaga laftirkeena federaal waa asaasi karnaa hadda dawladda Itoobiya ka xishoonayna ma ogi dawladda Itoobiya ka xishoonayna ma ogi federaal qatara oo commandos hadda waan sameyn karnaa annaga laakiin dawlad laguma kordhis annaga maanta ummadda Soomaaliyeed maanta waa ummad kililka shanaad ku hoos nool baanahay annaga haddii maanta laga dhigo dad ciyaar ah oo la fiirsado laba ciyaalo isdagaalaysa amal annagii oromo annaga dawlad baan nahayba haddii si la fiiriyo islaamnimaan dheernahay aqoon baan dheernahay wax wali baan dheernahay islaamnimada laftirkeeda ciyaar maaha ani qof muslim haddaan ahay iyo nin kristaana isku maba nihinba run ilaahay haddii loo baahay islaamnimadayda ka qaalsan nin saas u qaaliya nin xun oo oromo hadda dimaantu leeyahay
ceelka shalay biyaan ka cabbaan baa garahay guriga meeshaad ku dhasataan rabaa wax ku dhistaa waxaasuu dowladda etoobiya hadday fiirsanaysa haddii dowladda etoobiya ay jaahil tahay jaahilnimada ha ka baxdaan leey ha u gudubto wanaagga mujtamaca midda kale ummaddii shalay la yidhi la sii daayey 1500 maa la yidhi ka badan baa xirxiran dhibaato maanta ummadda ku habsatay baa laga xirxiray kuwii sheeganaya xuquuqda bilowaadanka oo xuquuqda bilowaadanka le oromo waa la laayay oromo waa la baabi'iyey oromo saana la yeelay oo raadiyaha dibadda kuwa oo mucaaradka macal dibadda iyo macal dalka ka qaylinaya oromo waa la sii daayay dhibaatada ay wadayaa ka mas-uuli hadda adigu london baa fadhidaa ummadda kalilka shanaad baa la dhamaynaa waa lagu soo duulay shalayna adaa laheed oromaa la dhamaynaa oromad anigu uguma tagin adisaaba dilla uguma tagin arbaamiji uguma tagin haddii alla ku roon yahay ugumad areero uguma tagin waajil uguma tagin ninkii maanta ii imaada mooyaal gudaheed igala dagaalamaa maxaad ogaa liweys xuquuqda bilowaadanka haddii maxaa la yidhaha hebel human right baa la dhahaa human right watch adigu london fadhiday ma oroma kii ayaan dhaweyd hadlay oo le human right watch haddaanu nahay ummadda oromada waa dhammaatay waa la hasuuqay ha la sii daaya kuwii dhahaya hadda maa dhahdaan ummadda soomaaliyeed waa dhammaatay waa baaba'day waa lagu soo duulay aniga goormaan dillaa tagay arbaamijo goormaan tagay areero waajil goormaan tagay yaaballa goormaan tagay waa yaabi tacajabe shashamane goormaan tagay dhulka oromada leed ashawa goormaan tagay dhulka caruusi goormaan tagay aniga dhulka oromada ashawa kuwii oo kufaarta gaalada ugu xunxun degan goormaan tagay aniga maxaa keenay in mooyaal markii laygu soo duulay dowladda etoobiya ay fiirsanaysa nin ka soo tagay arbaaminji baa ii imaaday aniga nin ka soo tagay dilla ayaa ka dagaalamaya mooyaale ciidamada militariga waa taagan yihiin waa u jeedaan wixii dhacay waa u jeedaan nin ka soo tagay areero ka koraa imaanaya ani areero maan tagay meeshaydaanba ku fakan la soomaa haddana saas ay tahay dadkaas soo dhexgali dadka koofi gaduud baa lagu leeyahay koofi gaduud maaha koofiyada dhiig bay wadataa miya macnaheedii ummadda soomaaliyeed wax lagu baabi'inay soomaa haddii dhibaatada la wada dowladda etoobiya ay wax ka qaban weyso ilaahay baan ku dhaartay tan ka daran baa la arki doonaa tan ka daran midda kale etoobiya waddayba isku furtaan ayadu war ma haysa wadda isku furtay waxay waddada isku furta maxay tahay dagaal maanta adduunku mamnuuc waayaba dagaal meel kasto in waan i qabow lagu qaboojiye hebel abiye markuu koraa hadda dagaal a bilaabanayo weligay ma maqlin oo horoma laga harsan waayo oromadii waaga hore waan ka harsanayn nabadan isla degnen maxaada soo kiciye intaa dareed dowladaaraa la door dhulballaarsiyaa la wadaa waxaan dowladda etoobiya u sheegayaa haddii oromo iimaanka ku weyda dhulkeeda anaa qaadana ogaanteeda lahaada intaas wabilaahi tawfiiq anoo soomaaliya anoo muwaadan soomaaliya diintaydaan kaashanaya ayagana kaatoliga ha kaashtaan meelaan isgeynayna marka dowladda etoobiya ha nagu fiirsata hadday soo dhexgali weyse